waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Oval News qodobada wararka daawad doontaan waxa kamid ah wasiir Beele oo faahfaahiyay deen ee dawladda Soomaaliya ka qaadatay hay'adda IMF beelka goosata koonfur galbeedna waxa ay soo bandhigeen ciidan hubeysan hadaba ujeedkoodu muxuu yahay iyo qaybta dambe warkeena waad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan suurtagal ma tahay in isbahaysi military ay sameystaan dalalka Carabta iyo Israel qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Oval News fadlan daawade haddaad ku cusubtaa janalka kusoo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararka joogtada aan ku baahino janalkan aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii share gareeyo oo la wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim haatanna kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo ah hayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa maalintii labaad oo xiriir ah hortagay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka oo ka doodaya miisaaniyadda 2022 iyo xisaab xirka sanadkii 2017 ilaa 2021 Beele oo su'aalo adag ay weydiiyeen qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay lacag ee dowladda federaalka Soomaaliya ka soo deensatay IMF sanadkii 2021 taas oo shaki weyn looga muujiyay waxa ay tahay qaabka loo maareeyay wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaana qiray in lacagtaasi ay iskugu jirto deen iyo deeq waa sidoo hadalku dhigay lacagta SDR si ay deen u noqoto shuruud ayay leedahay haddii aysan waqti lagu bixiyo lahayn waa garanti waxa u dhaxeeya labadaas ayaa jira SDR waa lacag loogu talagalay markii ay dalalku qiil galaan waa markii labaad oo IMF ay lacagtaasi bixinayso markii aad hesho lacagtaas ayaa la bixiyaa ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya sidoo kale wuxuu raaciyay bishii Agoosto sanadkii 2020 ayaa lacagtaasi la qaybiyay dalku xagee joogay markaasi xagee xildhibaanadu joogeen dalka in la badbaadiyo ayaa loogu talagalay ayuu yiri wasiir Beele ayaana sidoo kale shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay xisaab celinta lacagtaasi una cadeemaheeda horkeenayo baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka hal geeyo waxaan diyaar u nahnay xisaab celinteeda anigu lacagtaasi ma arag marna waa garanti ayuu markale ku yiri hadalkiisa wasiirku inta badan xildhibaanada madasha ka hadleen ayaana ku celceliyeen in wasiirku aysan cadeen jawaabihiisa ayna dalbanayaan inuu sugo maadaama ay tahay xisaab si kastaba Beele ayaa wajahaya tuhuna la xiriira madmadow badan oo ka jira xisaab xirka dawladda isagoo diiday inuu hortago xeer ilaalinta qaranka oo isniintii u yeertay geesta kalena beelka goosata koonfur galbeed ayaa soo bandhigeen ciidan aad u hubeysan beesha reer waasato oo degta degmada Ceelbarde ayaa ku dhawaaqeen in gabi ahaanba xiriirka u jireen dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay uga maqan tahay xuquuq ay ku leeyihiin maamulkaasi nabadoon Axmed Loxoos Maxamuud Yoobe oo wareysi gaar ah bixinaya ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay isku hayaan isaga iyo maamulka laftagreen Axmed Yoobe ayaa ku eedeeyay in koonfur galbeed ay caqabado fara badan ay ka tirsanayaan shacabka ku dhaqan degmada Ceelbarde ee gobolka Boqol waxa keenay in koonfur galbeed degmada Ceelbarde xiriirka u jarto waxa weeye caqabado badan oo kaga yimid maamulkaas ayuu yiri nabadoonka sidoo kale wuxuu intaas ku daray in halkii wasiir ay ku lahaayeen maamulka koonfur galbeed in loo wareejiyo beel kale sida uu ku dooday nabadoonku waxa kamid ah maamulkii markii uu yimid Cabdicasiis Laftagareen wuxuu sameeyay halkii kursi ee wasiirka aan ku lahayn koonfur galbeed wuxuu u wareejiyay beel kamid ah beelaha degaag Boqol ayuu ku yiri wareysigan uu bixiyay nabadoon Axmed Loxoos Maxamuud Yoobe waxa kale oo intaas ku daray wuxuu ku kacay inuu sameeyo inuu kala tashto degmada Ceelbarde dad aan u dhalan kolay caqabadaas imaaday oo markii horeba aan waxba ku haysanin haddana uu kala diray maamulkii degmada waxaas oo dhibaato annaga oo qabna ayuu halkii kursi ee aan ku lahayn dowladda dhexe ayuu beel kala siiyay ayuu yiri nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyay inay u dagaalami doonaan xuquuqdooda wuxuuna ka warbixiyay ciidamo ay ku soo bandhigeen Ceelbarde kuwaas oo uu tilmaamay inay dhistay beesha si ay isku difaacdo haddii la soo weeraro ciidankaas waxa u baahan deegaanka kolka ee koonfur galbeed dhibka qulqulatada ay ku hayso degmada Ceelbarde iyo nawaaxigeeda la arkay ayaa waxa ka tashaday umada deegaanka degan waana ciidan loogu magac daray caano ka dhan ayuu yiri nabadoonkaas ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan wax wada hadal la gali doonin koonfur galbeed ilaa ay arintooda ka soo farageliso dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya
waa hagaagi daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa suurtagal ma tahay in isbahaysi military ay samaystaan dalalka carabta iyo Israel. wargeysyada carabta ayaa siyaabooyin kala duwan uga faaloonaya warka isu soo taraya ee la xiriira soo jeedinta in la sameeyo Arab NATO ama naatada bariga dhexe ka hor booqashada la filayo in madaxweynaha Mareykanka uu ku tago bartamaha bisha soo socota dalka boqortooyada Sacuudiga waxaana la filayaa in kulankaas ay ka qayb galaan qaar kamid ah madaxda gobolka. warbaahinta carabta qaar ayaa xaqiijiyeen in fikradda isbahaysi military oo ka abuurma bariga dhexe ay gabi ahaanba fashilmatay iyadoo loo tirinayo isbahaysiyo la sameeyay 10 sano ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo heshiiskii Baghdad ee qarnigii lasoo dhaafay oo dhammaantood aan hirgelin. qaar kale waxay aaminsan yihiin in fikradda aasaasida isbahaysigan oo kale ay ku jihaysan tahay Iran iyadoo isku dhafka Israel iyo dalalka carabta ay noqonayso cudud military oo gobolka ka jirta waxayna ka digayaan in ay tani weeqi doonto qadiyadda Falastiin oo hal dhinaca isla markaasna ay kordhi doonto kala qaybsanaanta gobolka. qolo saddexaad ayaana aaminsan in abuurista isbahaysi ka dhan ah Iran ay hadda tahay arin aanan su'aali ka taagnayn iyagoona tusaale u soo qaatay kaalinta Iraq ay ku leedahay isku soo dhaweynta Sacuudiga iyo Iran iyadoo la eegayo wararka sheegaya inuu soo laabanayo xiriirka ka dhaxeeya Riyadh iyo Tehran. haddaba daawade maxaad ku ogtahay heshiisyada dhammaantooda fashilka ku soo idlaadeen? xasan abu haniya wuxuu wargeyska Arab 21 ku qoray dooda sii kordhaysa ee ku saabsan arinta isbahaysiga militariga ee bariga dhexe oo Israel ay qaybta ka tahay isagoona soo qaadanaya kaalinta dhibaatada ka dhalata NATO ee u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine. Abu Haniya ayaa yiri booqashada la filayo in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku tago bariga dhexe bisha soo socota waxa ay soo noqonaysaa fikradda ah in isbahaysi military laga sameeyo gobolka. boqorka Jordan Abdullah ayaana dhawaan u sheegay telefishinka laga leeyahay dalka Mareykanka ee CNBC in uu taageeri doono sameynta isbahaysiga military ee bariga dhexe oo la mid ah NATO wuxuuna xusay in talaabadan ay qaadi karaan wadamada isku fikirka yihiin. qoraagu wuxuu ku soo gabagabeeyay in fikradda ah sameynta isbahaysi military oo bariga dhaca ay Israel qayb ka tahay ay ka soo bixi karto dowladaha carabta oo ka baqaya awoodda sii kordhaysa Iran iyo soo noqoshada dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Islaamiga iyo cabsida ay ka qabaan cawaaqibka dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Abu Haniya wuxuu yiri laakiin taariikhda gobolku waxa ay muujinaysaa fashilka ku yimid dhammaan isku dayadii lagu doonayay in lagu sameeyo isbahaysi military Carabeed oo waqtiyo hore oo ay ugu horeyso fashilka isku dayay Mareykanka ee ahaa in la sameeyo axdiga Baghdad qarnigii tagay iyo fashilka isku dayay maamulka Obama iyo madaxweyne Trump taasoo ah waxa uu madaxweyne Biden ku fashilmi doono. Abdullahi al-Sheiji oo ka howlgala wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya ee ka soo baxay magaalada London ayaa ra'yigiisa ka dhiibtay arinkan wuxuuna yiri dhammaan hindisayaashii isbahaysiga amniga iyo gaashaandhigga ee bariga dhexe waxa ay ku dhamaadeen guuldaro ku darida Israel awgeeda arrimuhu aad bay u sii cakirmayaan ayuu yiri. qoraagu wuxuu intaas ku daray sidoo kale ma jirto heshiis qaliishka iyo carabta oo ku saabsan iskaashiga amniga iyo militariga ee Israel ama ka hortaga iyo beegsiga Iran. Maxamuud Abu Rahman ayaana isaguna ku qoray wargeyska Al-Arabi Al-Jadid oo fadhigiisu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska. qorsoodi kuma ahan siyaasiyiintu fikrad ka dambeysa mashruucan ay tahay in la wajaho Iran iyadoo la midoobayo Israel oo ah cudud ciidan oo la mid ah dalalka kale ee carabta ayuu yiri. qoraagu waxa uu intaas ku daray in arrinkan ay leedahay laba cawaaqib oo waaweyn. midda koowaad xoojinta mashruuca Israel iyadoo la weeqayo muhiimadda ay leedahay arrintan Falastiiniyiinta oo xudun u ah gobolka. midda labaad xoojinta xaaladda kala qaybinta gobolka oo ku saleysan madhab diimeed taasina waa arin khatar ah oo dhammaan shiicada carabta ee Iraq iyo Suuriya oo waxa saameyn ku leh Iran marka ay timaado dhanka xuduudaha ayuu yiri qoraagaasi. haddaba ma jiro heshiis Carabeed oo dhaba
Kamaal Khalaf ayaa wargeyska Ra'yi al-Yawm oo ka soo baxa magaalada London ku beeniyay in NATO ay tahay mid ka dhan ah Iran isagoo tusaale u soo qaatay booqashadii ra'iisul wasaaraha Iraq uu dhawaan ku tagay Sacuudiga iyo Iran booqashadaas oo ay warbaahintu u aragtay mid lagu soo celinayo xiriirka ka dhaxeeya labada dal. Khalaf wuxuu yiri waxay u baahan tahay al-Kadimi in uu wato qorshe cusub si uu u jabiyo rikoor cusub oo wada hadal ah haddii uu hadafka al-Kadimi guuleysto. Tallaabada ugu horeysa ee guushani waa soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Qoraagu wuxuu aaminsan yahay inay tani horseedayso xaqiiqda in ka hadlida xiriirka Carabta iyo Israa'iil ay ka soo horjeedo Iran ay tahay mid aanan su'aali ka taagnayn oo aan la rumaysan karin. Tusaale ahaan Masar waxay la gashay isbahaysi military oo ka dhan ah Iran annaga oo ku celcelinayna in hadafka Carabta lagu soo dhaweynayo Israa'iil oo lagu dhaxgelinayo gobolka uu wali yahay hadaf uu Mareykanku ka dambeeyo oo lagu dhawaaqay. Khalaf ayaana intaasi raaciyay waxa ugu muhiimsan ayaa in isfahamka Iran iyo Sacuudiga uu saameyn wanaagsan ku yeelan doono gobolka oo dhan. Imad al-Din Hussein oo ah tifaftiraha guud ee wargeyska Masar al-Shuruq ayaana sheegay in dalabka ugu weyn ee hogaamiyaasha golaha isbahaysiga Khaliijka ee shirweynaha soo socda uu noqon doono dalabka Joe Biden ee ah natiijada ugu dambeysa ee cusub kuna saabsan heshiiska nukleerka ee Iran iyo reer galbeedka oo micnihiisu yahay in aanan gobolka loo weecin. Hussein wuxuu aaminsan yahay in wadamada Carabtu ay uga baahan yihiin Mareykanka inuu cadaadis saaro Israa'iil si loo gaaro xal cadaalad ah ama xitaa dhexdhexaad ah oo ku saabsan arinta Falastiin. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii oo aad kala socoteen Hubaal News fadlan daawada haddaan ugu cusubtaan ugu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararkaan ugu baahina channelkan aragtidiina halka oo soo reeba muuqaalkana si share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim oo ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka channelka Hubaal News 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 Hubaal